waxaa la aasaasay golaha isku xidhka jaamacadaha kuliyadaha iyo xafiisyada deegaanka kulankan oo lagu qabtay madasha kulamada ee garaad maxamed dool ee xarunta madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar mas'uuliyiinta sare xukuumadda deegaanka kuwa jaamacadaha iyo marti sharaf kala duwan golaha ayaa ka koobnaan doona xafiisyada dowladda kuliyadaha dowladda kuwa gaarka loo leeyahay qurba joog iyo jaamacadaha jigsiga qabri dahar iyo dhaba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in golaha looga baahan yahay inay xoogga saaraan afkaaraha wanaagsan ee dhanka waxbarashada iyo soo saarista cudud waxbaratay oo aqoon-yahana waxa ugu muhiimsan ee saakin aan fahno u baahani waa uu muxuu soo kordhinayaa oo maaragtay muxuu inoo qabanayaa baan u malayn taana hordhac ahaan inaan fahansanahayna way jirtaa marka la guda galana wax badan oo kale oo faa'iidooyin oo inaga qarsoona oo ka soo bixi kara jira marka waxaan isleeyahay waxyaalaha uu soo kordhinayo knowledge led development programming horumarineed ama barnaamijyo horumarineed oo bulshada wax ka bedela oo dhanka dhaqaalaha iyo dhanka bulshada iyo dhanka siyaasadaba ah oo aqoon ay hagayso maadaama oo jaamacadahan iyo institutionada aqoonta soo saara knowledge productionka qaybta ka yahay ay isu imanayaan afkaaro يعني إمك سيها هب قانون لو شقي إنك صار دونا سيستماتيكا إنه نور سيد كره هدي ومن دل نقضه قوة لفت جود برك اللي جت فوق أنت محاول تاجي أنت اللي بيه اللي لفت جود واحد نقول ساقيب لأي كره دنك أقونته إن عكلا وين ريسورس له لا هو مركز لفت يسيل جريو ريسورس جا لهي دونا إن شاء الله إن سي استراتيجية لو هجو لعجها يوحس حبيس هذا حريك اللي هي مركز oo waliba la isku xiro baahi kale oo jirta hadda oo ah human resource development shantii sare ee hadda deegaanka isbedelku ka jiray meelaha gaabiska aan ka nahay u baahan hadda inta xoog la saaro saddex sano soo socota waxa kamid ah in la soo saaro cudud aqoon-yahan korna loo qaado kuwa jira tayadooda gaab badan baa jira xagga human resource-ga marka fanka la ururinayo iyo waxyaalaha la ururinayo laftigoodu qayb bay ka noqon karaan hadda skillska dad eegtaan deegaankeena waxa la yeeshay qala'aan bay dhalinyartu tahay maxay u yihiin haddii la isweydiiyo waxa weeye waxa aan baranayno iyo waxaan u baahanahay ma isla yihiin horta marka private sectorka deegaankeena ka jira wuxuu u baahan yahay shaqooyinku u baahan yahay iyo shaqooyin jaamacadaheenan iyo kollejyadeenan iyo macadyadeenan iyo wixina waxay dhigayaan horta ma isleeyihiin haddii la yidhaha gaab badan baa soo baxay aqoonta ugu horreysa ee laga sugayo consortiumkani dee waa in waxyaalaha hadda anigu aan sida habqanka ee leymanka aan u yar fahansanahay si organized oo daraasadaho figurkii iyo lambarkii wadata dee inay u sameeyaanba oo ula yimaadaan iyo wixii lagaga bixi lahaa iyo lessons learnedka meelaha kale waxyaalaha qaarkood inaan inagu tijaabina uma baahnin dad sidoo kale maray baa jiro oo aqoontu waa la soo kala amaahdaa marka inaynu aqoonahaas ay maartay consortiumka laftigiisu hadda waxaad mooday saaka intii discussion lagu jiray more or less xoogga waxa la saaray kaalinta uu ka ciyaar doono development-ga I think taasina waa muhiim talanba jaamacaduhu inay iskuulaad ay dhisaan inay tayeynteeda qayb ka qaataan inay iyaguba environment corporate social responsibility-ga saaran ee meelaha gaarkooda biyo u sameeyaan xaafadaha ku dhijisan luqadaan water system ka caawiyaan dadka buurka ee meelaha ka agnool aan waxaan aaminsanahay taas oo sideeda oo inay socoto ay tahay oo isku soo dhaweynaya institutionada iyo shacabkii resource hor laga soo saaraya pool cusub oo resource keenaya haddana dhanka aqoonta laftigeeda in xafiisyadii laga caawiyo oo xiriirkaas dhexdiisa lacaga badan oo research kaga bixi lahaa iyo daraasaadyo fara badan iyo cilmiyo fara badan iyo laftigeeda consortiumka uu bilaash ku siiyo resource soo isticmaalaya laftigeedu wax badan bay ka qabanaysaa dhanka horumarintan isleeyahay marka aad iyo aad baa loogu baahnaa kolleyda hadda weli istaraatiijiyadda ku shaqayn lahaa iyo qorshayaashii uu yeelan lahaa ee sanadkii measurable-ka ahaa ee la ogaan lahaa inuu shaqeeyo in kale iyo kulamadii iyo terms of reference-gii uu ku shaqayn lahaa iyo wixii oo dhan haddan baa la diyaarinaya ma launching-kuun maanta marka insha allah haddii aan la yidhaa sida maanta loo soo launch gareeyay inaan looga harin oo initiatives ka bilowday oo asaasid inuu noqon dhaqso consortiumku shirkiisu horreysay uu qabsado isu yimaado xubnuhu isu yimaadaan xafiiska madaxweynahana kolley yaa liidka qaadanaya
marka in dhaqso aan u qaadano oo shirarkii dibba la qabto terms of reference la qoro qorshihii la diyaariyo financial area wixii hadda immediately heli kara iyo wixii kale u baahan iyo sourceski la isla identify gareeyo oo la hawl galo oo ugu yaraan lixda bilood ee soo socota time frame uu yeesho waxani oo la yiraahdo waxa laga sugayaa ABC 1 2 3 4 5 shaqo konton bayaan noqon 5 shaqo inuu qabto jaamacadda qabdidahar inay wax qabato jaamacad concession-kan waxa inuu yeelo in la yiraahdo qorshe loo sameeyo ayaa muhiim ah marka waxyaalaha noocana sanadkan in strategically aanu qaadano magaalooyinka waaweyn dadna bilowno iskuulaad u qalma magaalooyinka oo qurux badan oo ilmuhu fadhiisan karo ama private sector ku wada u dhigmo inaan dadka masaakiinta ee dawladda aanu nahay aan sameeyno wasiirka xafiiska waxbarashada ee dawladda deegaanka Soomaalida ayaa faahfaahin ka bixiyay qaab dhismeedka iyo sida uu shaqeyn doono guddigu runtii maanta waxaa farxad inoo wada ah in aynu halkan u fadhino shirkeenu ku aasaasay golaha isku xidhka jaamacadaha kulliyadaha iyo xafiisyada golahana runtii deegaan ahaan muhiim inaga inoo ah isla markaana muhiimad gooni ah inoo leh oo ujeedada u weyn aynu aasaasayna uu yahay in aynu isku xidhno xarumihii waxbarashada iyo hay'adihii fulinaya horumarinta wada socotaan horumarka iyo baahida bulshadu inta badan waxay u baahan tahay daraasaad cilmiyeysan oo lagu darsayo baahida waxay tahay si loo qaban lahaa marka taa hadda ka hor deegaankeenu maadaama amni darro badan ka jirtay 5 sano wixii ka horeeyay inooma suurtagelin in yacna kulan noocan oo kale ah ama golo noocan oo kale inuu asaasano deegaanada kale way ka jiraan marka maanta runtii waxa sharaf noo ah madaxweynahana uu nagala soo qayb galay oo isagu uu hogaaminayo kulankan aynu ku asqumayno golahan oo runtii wax weyn ka tari doona baahida aynu u qabno inaynu sameeyno horumar ka turjumaya baahida shacabka waayo haddii baahida iyo horumarka loo baahan yahay aan la darsin way adkaanaysaa in laga jawaabo marka muhiimadda uu yeelanayo golahan waa isku xidhka jaamacadaha xarumaha waxbarashada iyo xafiisyada horumarinta iyo hay'adaha khusayso sidoo kale wuxuu sameyn doonaa ama dhisi doonaa yacni hay'adaha cilmi baarista ama daraasaadka sameynaya iyo kuwan horumarinta fulinaya iyagoo mar walba ka wada shaqeynaya sidii horumarinta deegaanka u noqon lahayd mid cilmiyeysan marka runtii bulshadeenna oo la daala dhacaysa baahiyo badan oo soo jiitamay oo garanaysa muddo soo jira una baahan in si cilmiyeysan loo darso golahan wuxuu noqon doonaa buundada isku xidhaysay jaamacadaha kulliyadaha iyo xafiisyada horumarinta waxay noqon doonaan kuwa si dhow u wada shaqeeya waxyaabahan isleenahay ujeedda ahaan way qaban doonaan waxaa ka mid ah in baahidaas xagga bulshada iyo horumarinta ka jirta loo wajaho si cilmiyeysan in la darso baahiyaha ka jira dhanka siyaasadaha horumarinta ama policy gap isla markaana markii la darso kadib la ogaado meelaha ay ka jiraan baahidu in marka la diyaariyo siyaasadii ku haboonaa ee wax looga qabanayay intii uu kulankani socday waxaa looga hadlay qaabka ay goluhu ku shaqeyn doonaan guddiga ayaana ka shaqeyn doona hagaajinta adeegyada waxbarashada waxaana ugu dambeyntii la aasaasay golaha isku xidhka jaamacadaha kulliyadaha iyo xafiisyada dawladda